بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا للإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. أما بعد، ولا ليال waxaan jeclahay maanta in aan idinla wadaago xoogaha yaroo kooban haddii alla igu idmo oo ku saabsan shareecada iyo waxa ay ka qabto nikaaxa. waxaanse ku bilaabayaa marka hore su'aal ah: shareecadu miyay reebaysaa oo ay mancinaysaa nikaaxsashada ama guursashada ruuxa faqiirka ah? jawaabtu waxa ay tahay maya, oo shareecadu ma mancinayso in gabadha ay guursato ruuxa saboolka ee aan waxba haysan. in ay guursato shareecadu mancin mayso, sida ku cad kitaabkeenna iyo sunnada rasuulkeenna maxamed ahaa salawaatullaahi wasalaamu calayh. balse waxaa habboon mar weliba ruuxa isagu doonaya in uu mehersado ama uu nikaaxsado gabar in aanu dhihin ama aanu ugu warramin in uu kala hayo cirka iyo dhulka, balse ay habboon tahay in uu uga warramo xaaladdiisa dhab ahaaneed, in uu uga warramo. taasi ayaa sharti ah oo laga doonayaa ruuxa guurdoonka ah, in si saraaxad lihi, si cad ah ama si caddaana ugu warramo waxa uu ku sugan yahay, xaaladdiisu waxa ay tahay, in uu uga warramo gabadha. gabadhuna markaa iyada ah waxaa waajib ah inaan la qasbin, oo waalidka waa aabbaheeda iyo hooyadeed, walaalaheed, qaraabadeeda, asxaabteeda, in ay iyaduna ay u naseexeeyaan oo ay ku waaniyaan waxa khayrka iyo maslaxadda ay ku jirto, iyaduna ay ugu jirto, ummaddana caam ahaan ay ugu jirto, in ay iyaguna ay ugu naseexeeyaan. suubanayna maxamed ahaa salawaatullahi wasalaamu calayh, calayhi afdal salawaatu watasliim, waxaa ka sugnaatay in uu yidhi: tasawajuu fuqaraa'a yugnikum ullah. guursada kuwa fuqarada ah, yugnikum ullah, allah ayaa idin hodmin. allah subxaanahu wa tacaala ayaa idin hodminoo hodon idinka dhigi oo idin barwaaqayn. marka waxba faqri ha kaga baqina inaad guursataan, si naftiinna aad uga dhowrsootaan macaasida iyo wixii la mid ah. xadiis uu soo wariyey saxaabiga weynaa at-Tirmidhi ee uu ka soo xigtay abi hurayra, allah ka raali noqdee, ayaa waxa uu ku sheegay nabigeena maxamed ah salawaatullaahi wasalaamu calayh in uu yidhi: idaa khataba ilaykum man tardawna diinahu wa khuluqah fazawijuuh. haddii uu idin soo doonto qof aad ka raali tihiin diintiisa iyo akhlaaqdiisa, gabadhiina hadduu idinka soo doonto u guuriya. marka waxaad halkan ka arkaysaa labada arrimood ee ugu weyn ee shuruudda u ah guurka, in ay yihiin in qofka marka hore gabadhu ay ku xulato diintiisa, marka labaadna akhlaaqdiisa. faqriguna cayb ma aha. ليه؟ لأن المال يغدو ويروح والفقير قد يصبح غنيا بكرة. فقرقو عيب maaha, sababtoo hantidu waa imaan wayna kaa tegi, way ku dhaafaysaa. ka faqiirka ah ee saboolka maantan waxaa laga yaabaa berri inuu noqdo nin taajira oo xoolo leh. marka waxaa wanaagsan gabadhu in ay ka eegto oo ay ku doorato oo ay ku xulato lamaanaheeda, ay ku xulato diintiisa iyo akhlaaqdiisa, sida uu nafaray suubanayna maxamed ahaa salawaatullaahi wasalaamu calayh. asxaabihii xilligaa la joogayna ayna soo gaarsiiyeen.
يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى وحاول إنه شيء يا آيدا حليه وأنكحوا أجوري مؤمنية هي من لا زوج له روح آن لما أنا لهين أما جبر هالنقطة أما ويل هالنقطة أو كمد أهي كوين حرتة رجع دمربا الله سبحانه وتعالى وحليه أجوريا أيام وحال هذا كو حرتة رجع دمرك أحرارته إذا كمد كأي الله سبحانه وتعالى أنا لما أنا لهم وحيري أجوريا منكم إذن كإذا كمد والصالحين أي كو الصوبا وإيجونا كمده من عبادكم الدومدين كمده كو آد هانتدين آد سو إبستين وإمائكم يا قبلها الدومدين إيجونا آد هانتدين وقعنتين أي هانتدين ملك يدينا إيجونا الله سبحانه وتعالى وحيري وقوريا الله سبحانه وتعالى أيدي سمحون غفري إن لو قوريو كو أحرارته حرته iyo kuwa aan xorta ahayn in loo guuriyo ay Allah subhanahu wa ta'ala uu nafaray hadii aan nahay dadka muuminiinta ah ee Allah subhanahu wa ta'ala tawxiidkiisa qaatay ee raacay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri waxa uu ballan qaaday in hadii yakunu ay yihiin fuqaraa kuwa fuqaraa ee sabool aan xoolo lahayn yughnihim Allah subhanahu wa ta'ala ayaa hodmin oo hodan ka dhigi oo u barwaaqeen min fadli deeqdiisa ayuu ka hodmin xageeda wallahu wasi'un alim. marka halkan waxa inooga cad walaalayaal sida aayadda ay noo muujinayso Allah subhanahu wa ta'ala in uu nafarayo kuwa faqriga la ildarani hadii ay gaaraan xilliga guurka in loo guuriyo gabdha iyo wiilalba oo wiilka faqriga aan lagu fogeyn faqrinimadiisa aan lagu fogeyn oo laga eego xagga diintiisa iyo akhlaaqdiisa in laga eego gabadhana in loo naseexeeyo ee aan la qasbin oo waxa maslaxada ku jirto iyadana maslaxadu in lagu waaniyo oo loogu naseexeeyo waayo nikaaxa baadigoobaya ee doonaya in uu mehersado Allah subhanahu wa ta'ala ayaa ugu yaboohay hodantinimo ugu yaboohay hadii uu yahay faqiir hadii uu yahay wallahu la yukhlifu al-mi'ad Allah subhanahu wa ta'ala ballantu kama baxayo oo adoomadiisa wax waliba isaga ayaa u qadaray inta ay joogayaan dunidan ee ay transitka ku yihiin aayadan waxa xoojinaya oo kale xadiiska ay soo wada wariyeen Ahmad at-Tirmidhi an-Nisa'i ibn Majah oo ay ka soo xigteen Abi Hurayra radiyallahu anhu Abi Hurayra waxa uu leeyahay sida ka sugnaatay suubaneen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ثلاثة حق على الله عونهم الناكح يريد العفاف والمكاتب يريد الأداء والغازي في سبيل الله صدح بوحا أو يشاقي أبو هريرة سيدا كسوكنات السوبنين محمد صلى الله عليه وسلم عليه إن الله وكالمين أيوه صدح ذا سمعي كليهين كان دونيه in uu maharsado uu guursado ama gabadha doonaysa inay guursato ama ay mehersato ee markaasi daacada alla darteeda u guursanaysa
ama wiilkaasi daacada allah darteeda u guursanaya si uu uga dhowrsanaado macaasida uuna uga fogaado, iyo ninka addoonka ahee doonaya in lacagta uu ku soo iibsaday sayidkiisa in uu dib ugu celiyo ee qoraal u qora ee uu ku sheegayo in qayb qayb si tartiib tartiib ah uu u siinayo lacagta. allah subxaanahu watacaala kaasina wuu garab qabanayaa, uu ka kaalmeyn sidii uu isaga bixin lahaa lacagtaas si uu xor u noqdo. qofka saddexaadna waxa uu yahay qofka u jihaadaya alla dartii, kaasina allah subxaanahu watacaala wax waliba uu u saqirayaa oo waa uu ku garab siinayaa wax alla wixii muraadkiisa ah. walaalayaal, waxaan doonayaa qiso yare aan goobjoog u ahaa in aan halkan idinkaga sheego, oo aan goobjoog anigu ahaa, kana dhacday Masar. waxaa dhacday xilligii waddanka uu burburay in dhalinyaro dadka Soomaaliyeed in ay muxuu ahaa ay u wada qaxeen wadamada deriska la ah Soomaaliya, allahu mustacaan, Yemen, Masar, meelo far badan oo adduunyada ka mid ah, qaarkoodna ay galbeedka ay u soo hayaameen alla uu sakhiray durbadiiba. marka waxaa jiray wiil ka mid ahaa dhalinyarada u soo qaxday iyagu Masar. marka xoogaha yar buu yara haystay, marka ganacsi bay muxuu ahaa isla galeen, yar kaloo ay asxaab ahaayeen ay isla galeen. marka ganacsigii in muddo ayuu u socday. marka yarkaasina ma ahayn muxuu ahaa dadka muxuu ahaa waxba aysan u bilownayn, oo inta Soomaali uu joogaba wuxuu ahaa nin aad u shaqaysta oo Soomaali dhexdeeda macruuf ka ahaa, ayuu ahaa, aqoon leh. marka Masar marka uu tagayna waxa uu ka bilaabay waxbarashada sare, ayuu ka bilaabay shahaadooyinka sare inuu diyaariyo, oo high diplomaha iyo masterka iyo waxyaabahaas inuu diyaariyo, PhD iyo arrimahaas ayuu durba galay. marka yarkaana waxay isla lahaayeen businesska ay isla lahaayeen. marka safiirkii joogay Masar, allah u naxariistee, Dr. Cabdullaahi Xasan Maxamuud Sharmaarke, ayaa waxa uu ahaa isaguna xilliga salaada duhur kadib yaa xafiiska waxa uu imaan jiray waxa arday ah, waxa odayaal ah, waxa Masar waxa ku sugan, jaaliyadda Soomaalida ku sugan, ayaa xafiiska ugu imaan jiray, wuu soo dhaweyn jiray, fadhiga ayuu ku qaabili jiray, isagoo uga warrami jiray wuxuu ahaa nin muxuu ahaa waayo araga ayuu ahaa, oo macallinna soo noqday, ari ooga xamarna soo noqday xagga waxbarashada, jabhaddii Soomaali galbeedna mar xogeeyo u soo ahaa, oo wax badan ka warhayay taariikhda Soomaalida ka warhayay. marka aad ayuu muxuu ahaa isagii odayaasha mar bay isu dhiibi jireen, laakiin ardaydaas meesha imaan jirtana aad bay uga faa'iidaysan jireen sheekooyinkiisa. marka maalin maalmaha ka mid ah wiilkan aan sheegayo waxna barta, isla mar ahaantaana ganacsigana la galay qof kale saaxiibkiisa ah, ayaa waxay isku soo qaadeen marka iyagoo keli ah, waxay isku soo qaadeen marka inuu guursaday wiilkan iyo in kale, inuu caruur leeyahay in kale. markaas wiilku wuxuu ku yiri may ma aanan guursan, xitaa markii waddanka aan joognay safiirow intaasba kuma fakerayn, waxaan ka fekeraya mar waliba sidii aan xoolo u yeelan lahaa. marba sidaan wax u ururinaya, markii dambena waa tii ay dhacday, dagaalkii sokay waa tii uu dhacay oo laga soo yaacay wixii oo dhan. marka laakiinse waxaan isleeyahay adigu markaan hadda wax yeesho, aan xoolo yeesho, inaan guursado, walow hadda mashruucii aan bilownay aniga nin kale xoogaa hadda maalmahan aad u liito oo wax faa'iida sidaas aan laga helayn. markaasuu safiirku wuxuu ku yiri waxaad yeeshaa guurso, sababtaa waxaa loo baahan yahay marka hore inuu magac kaa haro. markaasuu wuxuu ugu jawaabay, safiiro ma guursanayo, sababtaa anugu kutubo buugag ayaan hore u qoray, magaciga halkaasuu ku yaalaa, marka dhaxal uma baahni, dhaxal reeb waa soo samaystay. markaas wuxuu ku yiri safiirku waxa loo baahan yahay cid kugu abtirsataa loo baahan yahay, sidaas looma baahna, maxaa kaa reebay guurka? markaas wuxuu yiri waxaan ka baqayaa waxa hadda aan bilownayna mashruucina waa sii baaba'aya, marka inaan hadhow meel aan wax ka keeno aan waayo ayaan ka baqayaa. oo ilaahay kitaabkiisa waxa uu ku yiri waliyastacfif alladina laa yajiduuna nikaaxan, waayo yarka tafsiirkana waxbuu ka yaqaanay. alla wuxuu ku yiri kitaabkiisa ha dhowrsoonaadeen kuwa aanan karayn inay guursadaan oo inay nikaaxsaan aanan karayn, ha iska dhowrsoonaadeen xataa ilaa an yugniyahum allah, ilaahay uu ka hodminayo.
min fadli fadligiisa xaggiisa uu kaga hodminayo markaasuu safiirku wuxuu ku yiri waad fiican tahay waxaad soo qaadatay aayad fiican ayaad soo qaadatay oo daliil ah laakiinse aayadda ka horeysa ee suuratu nuur ku jirta aayadda ka horeysa bal akhri iyadana xaafidna uu ahaa yarkii marka aayaddii soo qaatay oo aayaddana waxay ahayd aayad haddaanan ka soo warramayn ayay ahayd ee ah wa ankixul ayaama minkum والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله markaasuu yiri markuu akhriyo yiri marka micnee balka markaasuu yiri ilaahay wuxuu leeyahay uguuriya kuwa idinka mid ah ee axraarta ah iyo kuwa adoomada intaba ee suuban uguuriya hadday fuqara yihiinna Allah ayaa hodmin oo deeqdiisa wax ka siin oo u balaarin oo u barwaaqeen haddaba wuxuu yiri marka ha ka baqin faqriga xataa hantida hadday baabaado guurso marka jaamicigii wuxuu ahaa nin markaasi wax fahamsan wuxuu go'aan ku gaaray hadalka safiirku uu sheegay aayadda sida ay qiraysaba in uu guursado ayuu go'aan ku gaaray isagoo waxba haysan mashruucii ayaa ka baaba'ay isagina uma joojinba sidii uu ku guursaday uu ku aqal galay isagoo markaasi xoogaha yaroo $100 haysta oo 2 biloodna guurka ku dhex jira oo xoolihiina lagu kala tegay oo muxuu ahaa xitaa muxuu ahaa dhibaato ku timid yarka kale sheerka ay wada haayeen dartooda muxuu ahaa loo bixiyey oo deymo kale la raadiyey oo deymo kale iyagu lagu yeeshay isagana xoogaa yar jeebka ay ugu soo hareen ayuu iska guursaday 2 bilood kadib isagoo guur ku jira isagoo markaasi $100 wax ka yar jeebada ku haysta ayaa waxaa soo wacday hay'adaha ka mid ah professionalka kuwa ah maadaama ninkan hore hay'ado professional ugu soo shaqeeyay isagoo gurigiisa jooga oo jeebadana ku haysta xoolo wax ka haysta $70 wax ka yar ayaa hay'adii waxay ka soo codsatay in uu u shaqeeyo mushaar fiicanna way ku qaateen markaasi ma waxaa la joogaa inuu ka fikiro arrinta miyaa la joogaa markaas waa deeq alla keenay halkii ayuu ku aqbalay warqadaha loo soo diray hay'adda uu u saxeexay halkii uu ku bilaabay shaqadii marka isagoo arday ah ayaa haddana wuxuu u shaqaynayay hay'ad professional ah oo bishiiba mushaar uu ka qaadanayay maantana wuu nool yahay oo waa Allah subhanahu wa ta'ala caruurna wuu siiyey xoolana wuu haystaa alxamdulillah wuu dhaqan yahay marka maxaa halkaas ku cad ilaahay aayadiisa ay ahayd in yakunu fuqaraa yughnihim Allah min fadli marka in faqri aad kaga baqdo guurka maaha waxa kaloo intaanan ka bixin aan jeclahay inaan ku soo gabagabeeyo qiso kaloo yar oo isla ku saabsan isla dhowrsanaanta qofka marka uu isku dayayo si uu dhowrsanaado darteeda in uu u guursado uu raadinayo marka waxaa jiray nin faqiir ah marka laakiin sataqi ah alla ka cabsidiisu ay badnayd marka wuxuu go'aansaday in aanu macaasi ku dhicino oo uu guursado ninka odagaha wuu socdaalay socod yar uu galay wuxuu socdaalaba maalin maalmaha ka mid ah isagoo meel webi ah agmaraya ayaa waxa uu arkay beer aad u qurxoon gaajana way hayso caloosh ayuu ka dareemayay gaasaska inay muxuu ahaa ay taabanayaan beerta ayuu ku leexday xabad tufaaxada oo aad u weyn oo ishiisu ay qabatay ayuu soo goostay tufaaxadii ayuu haaf ka cunay barkeeda ayuu cunay webigii ayuu biyo ka cabay waxaa ku soo dhacday markaas ninkii odayga ahaa in uu qalad sameeyey oo tufaaxadan oo barka uu ka cunay ninka beertay inaanu weydiisan idan markaasuu wuxuu go'aan ku gaaray in aanu ka dhex bixin beerta ilaa ay ninkaasi uu idan ka weydiisto wuxuu beerta ku dhex wareegaba wuxuu arkay guri ku dhex yaala beerta uu garaacay nin baa ka furay ninka markuu ka furay ayaa wuxuu yiri nin yahow ma ninka beerta lahaa ayaa tahay yiri markaasuu wuxuu yiri walaal waxaan ka rabay inaad isaamaxdo tufaaxadan xabada ah anoo gaajaysan ayaan ka goostay beertaada marka waxaan rabay inaad isaamaxdo qaybta ka hartayna haddii aad ii ogolaatana inaan dhamaysto sababta amar la'aan ayaan iska cunay tufaaxadaada markaasuu wuxuu ku yiri ninka beerta lahaa allay ka tahay inaan ku saamaxo
والله إن أنا كسامحين يري كعفين ما يري وحاسس كوجو عفين كرا هل شرط كلي أو أتكسر بحضه هل قضب أيام كوجو حرية هدي أتكسر بحضه قضب كاسي كسامح يا يري وتفاح دادان وحكوتها حلال الله كو بركة مركز يري محيتها شرطك أما قضب كادي وحرية سؤال يقول سامح يسمحويه مركز يري وأنا تقول ستاجا بدأينا نيكي ويا أبي مركز سعود كيسنا وحوها إنه راديو قف أوجو سدو مركز يري ورنيه هو عبارو فكري مركز يري والله وحنا نسعد وأقول وين أنا أقبلها يري مركز قالين كأيو قدوجي إنه جور سنيو نيكي أضيع يا وح مركز وعاو كيري وحاد سأوجاته كل هدي أد أقولاته إن أد جور سته قبل يدو واحد أوجاته إن قبل يدو أنا أرجع لهين وحبا أنا أركن وأين دلاله مد اللبات قبل يدو يعرب لا ده يو ما هذا شو أيضا مد صدحات قبل يدو أقول أو حاول ما قشوا دب أيو قرتني كأضيع عبارو فكري وحوك فكري قبل أن تربية أنت هذا وأذى جد هذا وحيدا وحمسك حديث كسر على مرك والله وحكوا ناس أنت السداس والرفاض الهيد هذا جهنم هذا إسكجله مرك دم سوى حكوا كسر عليه إن الدنيا ذا إسكتها معلمة ترسن هنا إسكتها مرك وحوك جوان كوجاري إن الله درتيسا وأجور سدو قبل ناس كعاويو دام أنا وحبا أركن أنا هدلينو أنا هدلين أنا وحبا مقلين إنه إسك عاويو إسك جورسد أيو جوان كوجاري مركز وحو يري أذر وان جورسنا يا قبل هذا ديار بان واحد أضيع أوكي يري وحال جاري مالنتي مركز البنت أي لا جاري إله توكل وحو يري ولا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون أقل كيلو دس أيو قلي قبل أيها لسوق البيئة والله كاني قبل هو فريستي مركي فريستي وإسك سهر جستين أيها سجوا يابن أيها قبل وحو أركي يدو سو استاكتي وحقي سو صعد مركز قعدت سو تاكتي وحي كتري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحي مركي أما كاج يشوق أيو قادي ووحو يرقبله ويسود دقاقده waxa way arkaysaa way hadlaysaa waa kan way salaantay way maqlaysaa waa tan anna waa muxuu ahaa markaan u radiyay salaanta way iga ajiibtay markaas wuxuu yiri muxuu ka wada aabaheeda markaas uga sheekay qisada dhex martay isaga iyo aabaheeda markaas ay gabadhii waxay ku tiri waa sax run baad sheegtay aabahay markii uu ku lahaa wax ma aragto wuxuu ka waday weligii wax xaraam ah isheeda kumaanan eegin marka uu ku lahaa ma hadashana wuxuu ka waday aabahay wuxuu ka waday ujeedkiisu uu ahaa gabadhaydu ma fariisato oo weligeed kama aanay qayb galin oo ma aanay fariisan dumarka meelaha ay wax ku xamanayaan iyo waxa ay ku sheekaysanayaan iyo khuraafaadka ay ka hadlayaan weligeed ma aanay xadirin ayuu aabahay ka waday marka uu ku lahaa wax ma maqashana wuxuu ka waday nin iyadu aanan u banaanayn weligeeda lama aysan hadlin nin xaraamka ah oo xilaheeda aanan ahayn weligeeda lama aysan hadlin ayuu ka waday aabahay markaasuu uu farxay ninkii aad u farxay halkii ay ku aqal galeen gabadhii iyo wiilkiiba marka qisadan waxay cabiraysaa iyadana ruuxa doonaya inuu dhowrsanaado alla dartii gabar iyo wiilba in alla uu la kulminayo waxa uu doonayay in uu la kulminayo marka waxaan ka rajaynayaa bulshadeena Soomaaliyeed wax waliba in laga eego dhinaca khayrka in laga eego inta ayaan ku soo gaabinayaa wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته